والله أرتوري دي مرة ماشي دجال أول موضوع وحكم بسوي صح maybe أنا هذا حب ده كما هاي أرتولا صح لكن وحبام دريمي إن أرن ماشي كجرتو أنا بس فهم واي إنه ماشي كده حد عاي أو إسفهم واي أن دريمي fadlan way to channel subscribe deh kablaakna rukumo بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن أونكسن دعوضيالي ديجيستيال ميل والبو أدوك أتك جوكتان كسو دوالا جنرال كينا واي تو دي جنرال وحاودا قلبيه فدي فلانقيا آد وحسان البدن آدي وين جنرال كواي تو دي جنرال وعيون كسو باغدين استوديو هنا واي تو دي جنرال يعني كسو دوا يو واي تو دي جنرال يعني واحد هاي فلانقيا وين يعني عوض الشرف بينو تاعي نقول كلنا ووقت أم عوض قادم sidoo kale waxaa garabkayga fadhiya garabkayga bidix king nabil oo isla markaana ah falaqeeyo weyn ku soo dhawow king nabil هذا ما أنت وأنا قدوا يعودون وفحصنا إن يعزمتان ويتولي جنال حرولتي سا si fiican waxaan ka rabaa waxaan ka hadli doonaa cawada arrin aad iyo aad baraha bulshada labadan bari weysatay aadna wax xasaanad badan waxaan ka hadli rabnaa arrinta durdur media iyo mataanaha media production فأرين معلومة عن الشدة أدخل السعودين برها بالشدة صح وأرين أد يسوي جديد مرة بدنا عن ربينا كهذا لكن وقتي أنا واي عوضة فرصة ولا شيء في عن نبيل سؤال شكو بدأ هو بلا بيا وحن كهرباء نبيل محي كل شيء إنه صلك كوهايو أرين سببتي دقاق أقول يعني إسماعيل حاج عبد الله حسن توب يسبروسي والله أرتوري دي مرة ماشي دجال أول موضوع وحكم بسوي صح maybe أنا هذا حب ده كما هاي أرتولا صح لكن وحبام دريمي إن أرن ماشي كجرتو أنا بس فهم واي إنه ماشي كده حد عاي أو إسفهم واي أن دريمي sidoo kale iyo wadan ku soo laabto iyo maxay kula tahay inuu salka ku hayo khilaafka u dhaxeeya Ismaaciil Xaaji Cabdallah iyo Super Ozil iyo Xasan Tob waa arintan si weyn ayaa looga hadlayay baraha bulshada si fiican khilaaf oo loo dhaxeeyo yaa marina صح fanta marina صح labadan walaal nin saaxiib aad u haayeen si fiican oo heshiis ah wax wada isla jiray si fiican waa adoo mar walba loo nin wax la isku daraay fahmino صح wax isku daraayna waa dad la isku daro صح marka hadda la ayna heshiis karaan labadaas oo hadii la isku keeno isku keenay heshiis karaan ama garta la galo waa inay heshiis karaan nabil adan ku soo laabana waxaan ku weydiinayaa ma la isdhihi karaa khilaafka u dhaxeeya Xasan Tob iyo Ismaaciil Xaaji iyo Super Ozil salku wuxuu ku hayaa arrin dumar ma la isdhihi karaa maya sabab because Ismaaciil Xaaji Cabdallah وان دادان أخانو صح wadada isku fiican hadii dad oo waqti dheerna isaqaano oo aan warar badan isla shaqeynay صح so wallahi ma aaminsana inay arrin dumar tahay waa arrin kale oo isfaham waa oo ka dhacay oo ay xaqooda ma ahane arrin dumar waxay salka ku haysaa aroon bilifolo ma jirta isleeda adi ahaantaada fikradaada ka dhibatay sax صح yow haddaan ku soo laabto ma la isdhihi karaa arrinta ka dhaxeysa durdur media iyo Ismaaciil Xaaji Cabdallah iyo Ozil arrinta ka dhaxeysa inuu salka ku hayo arrin dumar wallahi waa isdhihi karaa waayo dumarka dadka isku daraan laba nin saaxiib isku diri karaan si fiican si ninkan waa caashiqyada ninkan waa caashiq karaan marka صح صح marka dumarka way ka dhaxlan karaan labada nin heshiisku inay yihiin صح diri karaan adi ahaan fikradaada maxay kula tahay marka inay dumar isku direen inay lacag isku dagaaleen inay isfahmi waayeen inay meesha maaragtay gudoomiyaal ay leedahay janalka in gudoomiyaasha isku direen adi ahaantaada marka maxaad isdhihi kartaa yani fikradaada markaad ka hadlayso waxyaalo badan baa kula soo dhacay waxaa tahay falanqeeyo weyn baa tahay oo si aad ay ku garanayaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba adduunka ay ka joogaan marka fikir ahaantaada markaad dhiibto maxay kula tahay si fiican ana waxay la tahay inay arrinta arrin dumar inay taamuleen aniga waxa soo dabalaanay saaxiibaa صح inay taamuleen يعني حق adiga ah heeso waaye xog aad iyo aad u soo jiidatay waana xog xasaanad leh marka dhabta laga hadlo xaqiiqda ay imaado iyo wuxuu idin sheegay daawadayaal inay arrinta u dhaxeysa ay isku dagaaleen durdur media iyo Ismaaciil Xaaji arrin dumar ay tahay baraha bulshada maalmihii la soo dhaafayay waxaa la hadalhayay in ay showgii beedhaba ka dhacay beedhaba oo maaragtay isla markaana fanaaniin badan ay halkaas ku dhaceen lacag badan laga soo qaatay bulshooyinka Soomaaliyeed waxay hadal hayaan in ay markaasi lacagii la isku dagaal halkaas laga soo qaaday
barnaamijkoodan halkaas ay khilaafka oo ka yimaaday marka adiga ahaantaada waxaa tahay falanqeeyo weyn marka waxaa is dhehaysaa arrin dumar bay isku dagaaleen si fiican okay nabil maxaa arrintan ka qabtaa wallahi ani arrinteeda horaan u gudbistay si fiican ma aaminsan inay dumarada isku dirta ragaas okay marka nabil waxaa tahay falanqeeyo weyn bulshooyinka Soomaaliyeed aad u garanayaan ma la isdhihi karaa sidee labadan sidee saddexdan saaxiib dib ugu heshiin karaan horta hore haddii mar rag waa dagaala sax waa heshiiya sax rag markay saaxiibo yihiin waa rag marna isku dhaca marna heshiiya si fiican waxaan aaminsanahay aniga waqti dheer inaan qaadano heshiiskooda sax arrin yar oo maybe laga yaabaa hal daqiiqo lagu xalin karo inay tahay arrinta isku haystaan sax laakiin ani marar badan oo Ismaaciilna waan maalin hore saragnay sax arrintoodana waxay cusboonaatay sidaan xalay YouTube-ka baraha bulshada ku dhex arkay sax ma sheegi kari ani sababtaas hadda haddii aan isdhaho waa la heshiisiin karaa oo wax aad u fudud si fiican waana rag saaxiibo ah si fiican waana rag waqti dheer isla soo qaatay si fiican marka way fududahay in la heshiisiyo niyow haddaan kusoo laabto marka qaab noocyo ayaa dadkan lagu heshiisin karaa saddexda youtuber ee dagaalka ka dhexeeya waa arrin weyn si loo heshiin karo arrinta way fududahay sax waayo rag saaxiibaha mar haddii loo kulmo loo fadhiisto sax waa la heshiin karaa waayo rag odayaal imaan karo iyo rag akhyaar ah si fiican faanta waa maleynaa si fiican marka waxaa problem ma lahan wax walba waxaa leedahay waa la xali karaayo waxaa waaye qalad waa u dhacaa soo u dhacaa lama dhaho wax walbana waxaa fiican in la isku dayo waa taqaanaa Ismaaciil Xaji Cabdallah iyo Xasan Toob iyo Subuurowsi aqoon dheeraad u leeyahay si fiican ma ka wareysatay arrinta dagaalka khilaafka ka dhexeeya ma ka wareysatay adi ahaantaada fikrad qof su'aal ma ka weydiisay arrintaas ma wallahi qofka ma weydiin ilaa hadda qof lama xiriirin ilaa qof lama xiriirin okay nabil aan soo laabanaa ma aaminsan tahay in baraha bulshada ay si aad u kicisay khilaafka saddexdan saaxiib ka dhexeeya si fiican maxaa ka mid ah marka horta hore haddii adiga aniga hadda anisaan iskula fidnaa sax haddii aan adiga wax ilaas dhaafsano oo maanta baraha bulshada oo galo oo si saa'ida baraha bulshada u qaadaan si fiican si saa'ida macnaha u falaqeeyaan si fiican waa waxay noqonaya arrin damage ku ah oo say because arrin damage nagu ah labadeena bo sax because haddii aniga aan labadeena inaan heshiin arabno maybe waxaa laga yaabaa arrin hadda goor aan isku sameyn in lagu soo qaado sax soo baraha bulshada aad ayuu arrintooda aad ayuu sii darayaan oo isku sii darayaan labada qofood dadkii isku sii dirayaan dadkii heshiiska ahayd bay isku sii dirayaan baa leedahay maybe haddii inay heshiiyaan ay rabaan sax muxuu ahaay isku sii daraysaa aniga fikradeeda halaas waay okay waxaa jirta youtubera Soomaaliyeed isla markaana ku sugan magaalada Muqdisho dad aad loo garanayo kuwa ku sugan Europe kuwa ku sugan Afrikadan Nairobi dad badan baa jiro oo fanaaniina ma isdhihi karaa fanaaniintaas aadka ugu magacaweyn baraha bulshada aadka ugu magacaweyn aadka sharafta ugu leh in ay gartaan soo galaan haddii horta hore haddii ay soo galaan heshiisii karaan waana dad magac leh waana dad macnaha bulshada Soomaaliyeed magac iyo maamuus ku leh si fiican wayna heshiisiin karaan sax waa tahay daawadayaal dhegeystayaal meel walba adduunka aad ka joogtaan waxaad nagala socotiin Y2D channel waxaa barnaamijka aad iyo aad usoo farsameeyey ama editing usoo mariyay Yaasid oo isla markaana ku sugan dalka Canada gudoomiyaha Y2D channel Yaasid oo isla markaana ku sugan dalka Canada wuxuu ballan qaaday lacaga badan iyo maaragtay su'aalo badan oo la sii weydiin doono maadaama cawada aan waxa yarna su'aalaheena barnaamij jira aawud waxaan ku kulmi doonaa sida iyo amaalana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh